laamo qodax ah oo la jajabiyey ayaa lagu ooday qabri ay ku aasan yihiin laba gabdhood oo mataano ah oo ay ayeeyo u tahay Xaliimo Xasan Cabdilaahi. Carruurtan oo nafaqa darro iyo gaajo u geeriyooday maalin uun kadib markii ay dhasheen ayaa lagu kala magacaabi jiray Ceebla iyo Cabdiya. hooyadood oo lafteedu gaajo la liidata ayaa jiifta aqal aan qabowga iyo kulaylka toona celin karin oo ku yaala xero barakacayaal oo bishii Janawari ee sanadkan laga aasaasay duleedka magaalada Doolow ee Soomaaliya, halkaasoo ay qoysaskani 8 toddobaad kadib dirqi ku soo gaareen. 13,000 ee qoys ee xeradan ku jira ayaa ka mid ah in ka badan 6 milyan oo Soomaali ah oo u baahan gargaar degdega si ay u sii noolaadaan. Xaliimo waxa ay ka sheekaynaysaa dhibaatada ku habsatay. abaaro baan keenay 4 sano oo xiriir on ka bixi weynoon xoolo leeybaan hayn magaalo ma una u safarnimo maana waxba kuma lahayn xoolaha dhaqataan hayn xoolihii 4 sano xiriir abaaro ah ku dhacay way naga dhamaadeen wixii ari ah uu ka bixi waayay gacan wax ku si walba yeelo isu gado waan ka noognay markii xaaladda meeshaas maraysa baan biyo soo raadsanay iyo meeshii balad nooga dhow. roobkii oo di'i waayay 4 xilli oo isxigxigta ayaa sababay abaartii ugu darnayd ee muddo 40 sano ah dadkan soo marta, taasoo baabi'isay dalagii xoolihiina laysay kuwaasoo raqdoodu ay weli dhulka daadsan tahay. Ruqiya Yacquub waa agaasima ku-xigeenka barnaamijka cuntada adduunka ee Bariga Afrika. tani waa abaartii afraad oo xiriir ah ee aan aragno tan iyo 2011. qiimihii cunnada ayaa kor u kacay, saamaynta Covid ayaa weli jirta, isbeddelka cimiladu waa jira, colaaddu waa sii socotaa. waxaa jira dhammaan dhibaatooyinkaas oo lagu sii daray colaadda Ukraine. iyadoo indhaha caalamka guud ahaan iyo kuwa deeq-bixiyayaashuba ay ku sii jeedaan dalka Ukraine ayaa hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay waxa ay quus ka taagan yihiin in ay dareenka dunida ku soo jeediyaan musiibadan oo ay ku sheegeen mid la mug ah macluushii Soomaaliya ku dhufatay sanadkii 2011. in ka badan 1 milyan qof ayaa markaasi dhintay, kuwaasoo u badnaa carruur ay da'doodu 5 sano ka yar tahay. hay-adaha ayaa sheegay in ay hayaan oo keliya lacag ay ku gargaari karaan dad aan ka badnayn kala bar 13,000 ee ku silicsan xerada Kaxarey oo ka mid ah 3 xero oo ku yaala agagaarka Doolow. marka uu xaalku caadiga ahaa, Xaliimo waxa ay ku shaqaysan jirtay dhardhaqista, waxaanay hawshaasi ka masruufi jirtay 13 xubnood ee qoyskeeda. celcelis maalintii waxa ay helaysay $1 iyo bar, laakiin kuma filna. gabadha ay sodohda u tahay ee umusha ah waxa ay u baahan tahay dawo tiifowga ah oo ku kacaysa in ka badan 10 jeer joornaatigeeda. gabadhu waxa ay ku dul jiiftaa buste duuga, ilmo yar oo caata ah ayaana naaskeeda oo aanay caano ka dhiiqaynin jaqaya. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tallaabo degdeg ah oo la qaado ay muhiim u tahay sidii looga hortagi lahaa macluul ku dhufata 6 goobood oo ka tirsan Soomaaliya. laakiin howlgal degdeg ah waxa uu u baahan yahay lacag cadaan ah oo aan hadda faraha lagu haynin. qorshaha qaramada midoobay ee ku aadan bixinta gargaarka degdega ah waxa uu helay dhaqaale u dhigma 15% oo kaliya. ilaa hadda 2.8 milyan oo qof ayaa gargaar helay, 3.1 milyan oo kale ayaa la caawin karaa haddii lacagta loo baahan yahay la helo. inta soo hartay ee dhibaataysan waxa ay ku nool yihiin deegaano ay hay-aduhu sheegeen inaanay gaari karin, iyaga oo ku nool dhul geeri go'an ah oo ay gacanta ku hayso xarakada Al-Shabaab. waatan mar kale Ruqiya Yacquub oo ah agaasima ku-xigeenka WFP ee Bariga Afrika. qiimaha badeecooyinka ayaa ku dhowaad 2 jibaarmay. meelaha qaarkood sicir bararku waxa uu gaaray 93%. gargaarka bani'aadminimo ee Soomaaliya waxaa la bixiyay 15% oo kaliya. waxaan u baahannahay lacag cadaan ah si aan uga hortagno khatarta macluusha. 2011 waxaa geeriyooday 1 milyan qof. marka haddii aynaan hadda lacagtaas helin, waxaan u malaynayaa inaan jihadaas u soconno. xerada hareeraheeda dadku waxa ay meydka ku aasaan meel kasta oo ay awoodaan. mararka qaarkood qubuuraha waxa ay keliya calaamad uga dhigaan laamaha geedaha oo qalalay. xeryaha dhexdooda qoysaska hadda soo gaaray ee aadka u liita waxa ay dawarsadaan kuwa iyaga ka roon ee goor hore xerada yimid, diiwaangelin iyo gargaarna loo sameeyey.